ganacsatada, cuqaasha, salaadiinta, iyo aqoon-yahanka beesha degta koonfurta magaalada Hargeysa iyo degmada Salaxley oo ay qayb ka ahaayeen guddiga gacanta ku haysa wadada cad ayaa hadhimo sharafeed duleedka magaalada Hargeysa ugu sameeyey isla markaana ku maamusay Badhasabkii hore ee gobolka marodijex mudane Jaamac Xaaji Axmed. hadhimo sharafeedkan oo ay qayb ka ahaayeen badiba ganacsatada iyo haldoorka beeshan hormuudna ay u ahaayeen suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Daawud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir iyo guddoomiyaha shirkadda Telesom Group Cabdikariin Maxamed Iide waxaana hadallada iska daba qaatay mas'uuliyiintii hadhimo sharafeedka u sameeyey Badhasabkii hore ee gobolka marodijex. waxaa kaloo mahadinaynaa guddida oo runtii soo agaasintay xafladan munaasibada guddoomiye Jaamac oo runtii loo sameeyey xafladan waxaan leenahay wuxuu nabigeenu leeyahay alayhi salaatu wasalaam man la yashkuru an-nas la yashkuru illah qofka bini aadanka galada la xasuusan waaya ilaahna ma xasuusto marka guddoomiyaha oo si qurux badan hawlaha u hayay anaguna aan xogogaal u ahayn kulamo badan oo isugu nimi runtii aad baan u bogaadinaynaa walaalahana waxaan leeyahay dhammaan haddaynu doonayno adduunku inoo hagaago adduunka iyo aakhirada isku xidhan haddii adduunku hagaaga aakhirada hagaagaysa haddii aakhira hagaagto adduunuhu hagaagaya dadka mas'uuliyiinta ah xilkaska ah ee diinta ku xidhan ha loo badiyo xilalka runtii markaasaynu nabdayna markaasaynu degayna markaasaa ubadkeenna iyo inta tafiirta ee soo socotaba ay u samaynayna dabcan ayaanu u mahadnaqaynaa una munaasabadan maanta u samaynay insha allahu sida runtu tahay guddoomiyuhu gobolka iyo meel ka sarreysa wuu qalmaa sida runtu tahay gobolka wuu ku filaaday koone ilaa koone wuu ku filaaday gobolka waxaanu leenahay dadka wanaagsan ee caynkaasi inay kor u socdaan mooyaane inaanay hoos soo noqon ayaanu rajaynaynaa insha allahu bismillahi kariim waddadii yareed imika aanu wada shaqaynaynay sida runtu tahay waddadoo qura ka hadli maayo deegaan ahaan gobolka laftiisa siduu u dhan yahay meeshaad istaagta waa loogu mahadnaqayaa Jaamac isaga iyo laba nin oo imika nin kale oo isna guddoomiyaha bangiga ahaa labadan nin magaalada aad bay u hadlaysaa sida runtu tahay in aliyaala intaa la yidhi baan la qabaa shaqadii waxaanan ka tirsanaa guddida haddii aanan guddidaa ka tirsanayna dee qurbi umaan dib ugu noqon lahaa waan ku reeyey waddada cad aniga laftaydaa ku reeyey oo waddada raggii la shaqaynayey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin intii nala shaqaynaysay oo Jaamac madaxu yahay oo guddoomiyaha gobolku uu madaxu yahay iyo rag kale oo fara badan oo nala shaqaynayay macaa dawladda si wanaagsan waddadaa uga shaqaysay kan fadhido inaan uga badsaday Jaamac maalintii la sheegay ee la yiri Jaamac waa la bedelay waxaan sunnahan dawladda ay yiraahdo waa sunnaha dawladdu waa meelaha uu kuba khaldamo horta sunnaha dawladdu iyo waa meerto waa meelaha ay ku khaldanto waxay ahayd sunnaha dawladdu inuu wax wanaagsan jideeyo ninka wanaagsan inuu dalacsiyabahay madaxweynuhu ummadda Hargeysa waa taab sabtida loo qaban doonaayo meel aan ninka Jaamac aan la lahayn anu waxa maslaha malaad daakhiliga iyo meel baa la geenayaa baan islaha markii hore ilaahi aan marnaba islahayn Jaamac ayaa hoos loo dhigayaa marka Jaamac waxaan leeyahay Jaamacu ilaahay iyo ummadiisu bay ku ogtahay sidii wanaagsaneedeed uga shaqaynaysay yaani de markaan aan leeyahay daakhiliga la geenayaa dadka waxaan u yaani booska ku xiga waa daakhiliyuun qolada guddida wadadana waxaan ugu mahadnaqayaa wadadan ay muddada dheer ka shaqaynayeen ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro Jaamac waynu garanaynaa waxa weeye ninka aan ummadda u mahadnaqani ilaahay uma mahadnaqa la yidhi Jaamac muddadii uu gobolka joogay taariikh wuxuu ku leeyahay aad ogtihiin dhibaatooyinka gobolka ee dhan walba bari iyo galbeed uu soo afjaray dee woogiya nin ragii doqona loo sheegi maayo waxaan leeyahay Jaamac ilaahay bedel khayr qabaha ku siiyo meesha aad tagtay meel ka fiican ilaahay ku geeyo waxaan ogahay in xilku aanu tashriif hayna tagliif yahay Badhasab waxay adna waa ku sharaf reerkuna waa ku sharfay adna intaas milkay maamus kugu filan dalcada ka weyn maanta in lagu qiro wax qabad iyo wax tar lagu qaba ma jirto dalcad ka weyn ma jirto tolkaaba ku mahadnaqay dadkii waxa in lagu inkaar lagu sheegay inkaar ku dhacay baga ilaahay bay naga xiyay halkii la goor lahaa
haddii la weyn ilaahay ha ku maamuusaa ku sarsiyo waa guul inuu hayo ta kale jaamac xaaji axmed aniga waxaa noo dheer saaxiibtinimo tolnimada guud waxaa noo dheer saaxiibtinimo nin qiimo badan oo sharaf badan weeye kamuu soo bilaabin shaqada marodijex iyo guddoomiyaha gobolka xildhibaan wuxuu ahaan jiray gobolka togdheer oo deegaanka muddo badan qayb kasta oo jaaniba oo gobolka uga soo shaqeeyey tanna hadda ma ahan miduu tegaye waa anagu qoladaygan dowladda u shaqeeya waa iskala qabsanno waa soo meermeernaa waa soo noqonnaa haddana meel kale aan ka soo galnaa dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay badhasaabkii hore gobolka marodijex mudane jaamac xaaji axmed oo uga mahad celiyey hadhimo sharafeedka loo sameeyey islamar ahaantaana lagu maamuusay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan u mahadnaqayaa salaadiinta iyo guddida waddada cad iyo ganacsatada iyo mudanta maanta casuumaddan samaysay iyo marti sharafta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay ilaahay idin sharfo waana karaamayseen waana maamuusteen waa gobonnimo sidaa uu xildhibaanku sheegay laydinku ogaa oo dhaqana ula haydeen allah idin sharfo oo idin ducaynaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro runtii qof mas-uulana waxa ugu filan horta dalacaaddu xagga ilaahay bay ka timaadaan bini'aadmigu waxay ka eegaan meelo kale anugu xilka dowladdana maan soo doonan markii hore nin iska asturan baan ahay iska shaqaysta maantana waan ku farxay runtii in madaxweynuhu ina siiyey oo hawshii day to day ahayd cuslayd 4 sannadood waxay ka dhiman yihiin aan ka soo shaqaynayay aad baan ugu farxay waxa kaloo runtii farxad ah oo wax ilaahay loogu mahadnaqa ah in bulshadii gobolka marodijex dhammaan bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur aan isjecel lahay oo ay mahadnaqayaan taasina waxa weeyaan waa fadliga ilaahay iyo karaamadii fadliga ilaahay iyo runtii iyo wax ilaahay loogu mahadnaqo waxa weeyaan maaha anigu awood aan leeyahay iyo raganimo iyo karti dadka aan dheerahay waxa weeyaan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dadka waxa wanaagsan waafajiya waxaan ugu mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga uu garsiiyey iyo runtii inaan mas-uuliyadda ummadda aan u hayay oo ah qof kasta inuu dareemo mas-uuliyadda uu hayo marka hore inuu ilaahay kaga boqo marka xigana ummaddiisa ugu shaqeeyo si daacadnimo ugu dambayntiina waxaa soo xidhay hadhimo sharafeedkan lagu maamuusayey guddoomiyihii hore ee gobolka marodijex jaamac xaaji axmed suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan daawud suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir ilaahay baa mahadle ilaaha weyne raxmaanka halkan inagoo caafimaad qaba iskugu kan keenay ayaa mahadle marka labaad guddida casuumaddan samaysay ee waddada cad ayaanu mahad celinaynaa waxaanan halkan ku soo dhaweynaynay badhasaabka gobolka iyo madaxda kale la socotaba ayaanu ugu mahad celinaynaa sida quruxda badan ay noogala soo qayb galeen aan kuna soo dhaweynayno waana deegaankoogii waana gurigoodii oon leenahay ku soo dhowaada gamco furan insha allahna xilka xil ka wanaagsan ayuu ilaahay ku saari doonaa oo kuugu ducaynayaa oo diinta islaamkana aad ugu heliso ugu dambayntiina waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey badhasaabkii hore gobolka marodijex jaamac xaaji axmed cabdiraxmaan axmed eroole Ariel TV hargeysa.